Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shaqaalkii lagu dilay Abraham Lincoln wuxuu ku dhashay Lincoln, Mareykanka sanadkii markuu ahaa 1809 waxaana iska dhalay hooyo iyo aabbo aan bogooda bog ka xigin oo ahaa beero tabcato. Mana uusan helin Abraham Lincoln waxbarasho taam ah, balse isaga ayaa wax isbaray. Sanadkii markuu ahaa 1837 wuxuu galay ururka looyarnimada, isagoo aasaaska iyo hordhaca looyarnimada isbaray. Kadib waxa uu furay maktabad looyarnimada laga qaato. Intaas kadib waxa uu noqday Abraham Lincoln looyar guuleysta. Wuxuu aroosay wax ka badan hal mar, waxaana ugu caansanaa Mary Todd, taasoo ka soo jeeday qoys hantiilayaal ah. Waxay isqabeen ilaa sanadku markuu ahaa 1842 ilaa ay ka dhimatay. Waxa uu Lincoln ahaa mid xubin ka ah xisbiga Whig Party, kaasoo ah xisbiga labaad ee Mareykanka. Waqtigaas wuxuu Lincoln magaciisu ballaaray kadib markuu ka soo jeestay dowladda Mareykanka inay duulaan ku qaado waddanka Mexico, isagoo cambaarayay Mareykanka inuu ku xadgudbay dowlad kale. wuxuuna tuhmay madaxweynihii markaas talada hayay James Polk. Kadib markuu Mareykanku ka guuleystay Mexico, wuxuu ka qabsaday 2 gobol oo kala ah California iyo Texas uu dhulkiisa ku soo darsaday. Sanadku markuu ahaa 1848 buu iska casilay Abraham Lincoln xubinnimadii uu ka hayay baarlamaanka Koongareeska, wuxuuna dib ugu laabtay looyarnimadiisii. Waxa uu caan ku noqday waqtigii doorashada khudbadiisa aad ku kululayd oo ahayd in dadka aan mar dambe la adoonsan doonin, balse uusan ku adkayn carabkiisa inuu simi doono dadka madowga ah ee la adoonsado iyo dadka caddaanka ah ee wax adoonsada. Waxaa kor u kacday shacbiyaddii iyo uu xisbiga ku dhex lahaa, iyadoo ay saa tahay haddana doorashadii waxa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga. Waxay ahayd Mareykanku xilligaas mid u kala qaybsanayd 2 qaybood oo kala ah bari iyo koonfur, oo markii la manciyay in dadka la adoonsado 1808 koonfurtu waxay ku adkaysatay inaysan dadka adoomada aysan fasixin oo ay weligood ku shaqaystaan, balse qaybta bari iyagu hadalkii waa raaceen. Sidaas ayay Mareykanku tafaraaruq uga dhex jiray. Intuusan Mareykanku Mexico dagaal ku qaadin, Mareykanku wuxuu kala qaybsanaa 2 qaybood oo kala ah qaybta xorta iyo qaybta adoomada. Waxa uu ahaa mid xisbigu horey uga tirsanaa Abraham Lincoln, xisbiga Whig Party, mid ay naftu ka sii baxaysay, oo xubnihii ka tirsanaa ayaa ku biirayay xisbiga loogu magac daray xisbiga Jamhuuriga. Lincoln waxa uu ku biiray xisbiga Jamhuuriga sanadku markuu ahaa 1854, 4 sano kadibna waxa uu soo sharaxay madaxtinimo isagoo ka socda xisbiga Jamhuuriga. 6 Noofembar 1860 waxaa la qabtay doorasho, wuxuuna helay Lincoln codad gaaraya 40% oo labada nin ee la tartamaya codadkoodu waa ay kala qaybsanayeen. Sidaas daraaddeed ayuu wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee xisbiga Jamhuuriga laga soo doorto. Goortii la ilaamiyay in doorashadu ku guuleystay Lincoln, waxa ay ku dhawaaqday gobolka South Carolina go'itaankeedii iyo inay ku biidhay 6 gobol ee kale oo gooni isku-taag ku dhawaaqay oo kala ah Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Texas iyo Louisiana, oo lagu daray koonfurta Carolina oo 7 ku ah. Waxay waxaysteen dowlad ay u bixiyeen Confederalia. 5 sano kadib waxaa dagaal dhex maray bariga midnimadoonka ah uu warkacayay Lincoln iyo koonfurta gooni-goosadka. Waxa ku guuleystay Lincoln dagaalkaas, wuxuuna mideeyay labada dhinac, waa koonfurta iyo bariga. Labada dhinac oo la isku daro dhimashadooda ayaa gaaraysay 600,000 oo qof iyo dhaawac malaayiin ka badan. 14 Abriil 1865 oo maalmo laga joogay sii dhiibidii koonfurta, waxaa soo xaadiray isaga iyo xaaskiisii ee masraxa Maryland oo ay joogaan kooxo caloosha xumaan ugu hayay. Mid ka mid ah ayaa biskoolad inta uu la soo baxay madaxa kaga toogtay Abraham Lincoln. Abraham Lincoln bartii ayuu ku nafbaxay. Ninkani Abraham Lincoln dilay waxaa lagu magacaabay John Wilkes. Waxa uu ahaa nin Masoniya oo ahaa kooxihii ka dagaalamayay gobolka koonfurta ee laga guuleystay. Waxaa xilka la wareegay madaxweyne ku-xigeenkiisii Andrew Johnson. Lincoln waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee la dilo. Haddaba Masoniyadu maxay ka rabtay Abraham Lincoln? Masoniyada Abraham Lincoln waxay ka rabtay inay iska horleexso, waayo danahooda ayuu ka hortaagnaa, oo waxay rabeen inta ay dilaan inay xilka dalka la wareegaan, una ay dhiibtaan rag mudeec camalsan u ah iyaga oo qaadanaya waxa ay amraan. Wassalaamu calaykum.